magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa waxa leeyahay maalmaha ciida ee Adxa waliba inay noqoto meel faaruq ah ama illa booliiska dalka Suudaan waxa lagu soo warramay in cabsi soo wajahday kulay sheekadan xiisaha badan waxa ay noo soo diray Yuusuf Maxamed Macalin Kashmir oo halkaas inooga soo warramay iyadoo ay soo dhowdahay maalinta ciidal adxa ayaa waxaa caasimada Khartoum ee dalka Suudaan ay noqotaa firaaqo ama meel hawnayso oo inta badan ay ka baxaan muwaadiniinta Suudaan ee degan caasimada inta lagu gujiro maalmaha ciida iyadoo munaasabada farxadda la wadaaga eheladooda iyo qaraabadooda ku nool gobolada fogfog ee dalkan Suudaan booliska dowladda Suudaan ayaa arrinkaasi cabsi ka muujiyay waxayna baaq u soo jeediyeen muwaadiniinta Suudaanta ah ee degan magaalada Khartoum in guryahooda ay aad u xirtaan inta aysan ka safrin General Ibrahim Usman Abdulrahim taliyaha ciidanka booliska Khartoum ayaa sheegay in ciidan badan loo diyaariyay si ammaanka guryaha Khartoum ee dadkooda baneeyeen loo adkeeyo dhanka kale ardayda Soomaaliyeed wax ka barata dalka Suudaan ayaa inta badan dib ku qaba maalmaha ciida iyadoo aysan jirin meel ganacsi oo furan haddii ay ahayd maqaayadaha laga cunteeyo ama meelaha kale ee ganacsiga qaar ka mid ah ardayda oo warbaahinta qaranka la hadlayay ayaa ka warbixiyay dhibka ay ku qabaan maalmaha ciida arday ka ahaan waa ku dhibanahay ciida Khartoum laanu waxa dhaca in meel walba wax laga cuniyay ama meel walba public ahaayo way maalmihii hore furnaan jiray in la xiro oo barnaamijyo kale ay ka dhacaan marka runtii aad baan ugu dhibanahay anagu waxay iska noqotaa inaan guryaheena iska jiifno markaan salaad soo tukano laga yaabaa 3 cisho oo barnaamij yani ciida socoto maanta farxadda ee mubaaraka in aan guryaha iska jiifno guryaheena barnaamij ku samaysano cuntadeena iyo waxyaalaheena nolol maalmeedkeena runtii aad baan ugu dhibanahay wax badan ayaan halkan ku soo ciidnay tii hadda ugu dambeysay waxaan xusuustaa xitaa marar qaar inaad helaynin muwaasalaad ama basraac ma jiro basraac waxaan ka hadlayaa macnaa baska laftigiisa waxaa laga yaabaa adigoo lacag haysatid waxaad cuntada maysid meel furan ma laha dukaanada la xirayaa maqaaxiyaha la xirayaa sita shahyada ama meelaha shahyada lagu kariyo wixii oo dhan waa la wada xirayaa maalmaha ayadaa waxaan Soomaalida aan dhahayaan ku celcelinayaa isu diyaariyaan guryahoodana ku saftagelisnaadaan talooyinka ay soo jeediyaan booliskana mar walba xaaloo dagan dowlado baaqan ay soo jeediyeen booliska dowladda Suudaan ayaa amaanaya iyadoo inta badan shacabka ku nool caasimadan Khartoum ee dalka Suudaan ay maalmaha ciida ay la ciidaan eheladooda ku nool gobolada fogfog Yuusuf Maxamed Macalin Kashmir warbaahinta qaranka caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum أبو معسي هاي وريهن يوسف كشمير وربحن تاسين وقصوا دري دالك السودان